ninkii kala saar lahu ninkii kala sooc wado ninkii si xun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale طيبة وبعد وحوي رنتي وها فرحد وين نوع عاوة إن نسكون نمادنا حرونتا حافظ كجالية الصوماليات UK أو كيا لندن إنه إسكوجي ما دو بدي كار لو حل ساري عمبارنتا حجزبينات كدحي أو دحمري إثيوبيا iyo Somaliland runtii heshiiskaas oo mid ka soo horjeeda qaanuunka caalamiga ah ka soo horjeeda dastuurka caalamiga ah caalamku idin oo ku baaqayo in laga noqdo heshiiskaas heshiisbeenaadka waxa kale oo xafiiska caawa runtii aan ku lafagurayna guddigan gaarka ah oo loo xil saaray sidii loo qaban qaabin lahaa mudaharaad weyn oo loogu talagalay inuu ka dhaco London mudaharaad looga soo horjeedo heshiisbeenaadkaas oo runtii lagu mudaharaadayo safaarada Ethiopia marka runtii guddigaas caawa halkaas arrintaasaan iskugu nimid waxaynu ka soo saari doonaa mataqaana communique ama baaq arrinta ku saabsan ilaahay baanu mahad u celinaynaa caawa halkaan iskugu kaya keenay annaga oo ka hadlayna danaha Soomaaliya runtii arrinta caawa halkaan aan u nimid kow weerarka iyo boobka qaawan ee Ethiopia ay ku damacday dhulka Soomaaliya iyo dekedaheeda waan cambaaraynaynaa heshiis beenaad iyo heshiis xumaan midna oran mayno cid la heshiiyey oo arrintaas ku lug leh oo ka heshiin kadha oo ka munaashaqoon kadha oo lagala hadli karaana ma jiro Soomaali ninkuu doono ha noqdo dalka Soomaali baa leh Soomaali baana u tashanaysaa marka boobka qaawan iyo weerarka Abiy Ahmed uu ku hogaaminayo dadka uu matalo ee reer Ethiopia waxa weeye aad baan u cambaaraynaynaa meel kasta oo ay ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed dal iyo dabadna waxaan leenahay ha loo istaago cambaarayn keliya oo afa ma aha waxaan rabnaa inaan muujino qoraal samayno safaaradda Ethiopia meel walba oo adduunka ku taalo waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u istaagaan oo ay soo gudbiyaan ra'yigooda ayagoo la kaashanaya international community-ga iyo wadamada ay ku nool yihiin annaga reer Ingiriisa waxaan diyaar u nahay caawana halkaan u fadhinaa inaan cilaamino iskuguna yeerno ummadda Soomaaliyeed safaaradda Ethiopia horteeda lagu muujiyo inaan la hunguriyeyn karin dhulka yaga oo aanan raalli ka ahayn halkan waxaan baaq dheer uga jeedinaynaa dowladda Ethiopia ee uu hogaaminayo Abiy Ahmed waxaan leenahay dalka Soomaaliya iska leh ayaha Soomaaliya ka tashanaysa marka waxaan rabnaa caawa maadaama aynu nahay jaaliyadii UK guddiga jaaliyadii UK maadaama aynu nahay waxaan soo jeedinaynaa in aan sameyno mudaharaad ballaaran oo aanu tusi doono inaan ka xunnahay waxa ay sameeyeen dowladda Ethiopia ay sameynayso arrinkan waa arrin xasaasi ah oo aan loo dul qaadan karin oo u baahan in dowlad ay la heshiiso ma aha dowlad inay maamul ay la heshiiso wax jira ma aha marka waxaanu u fadhinaa inaan soo saarno hadduu Allahu dil raali ka dhigo in mudaharaad ballaaran oo wadankan aan ku qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo aynu soo jeedino aad iyo aad baan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلك هالكن عاو أنو سوق النمط ودارية هاي يدو لقى أن بقى هذا يو تلمامه مدح جمهورية فترة الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود
oo ahaa diyaar garowga difaaca dalka Soomaaliyeed bari iyo hawaba sidaas darteed qof kasta oo Soomaali ahna waxaa saaran waajibaadka ah difaaca dalka guud ahaan meel kasta oo ay ku nool yihiin haddaba waxaa jaaliyadda gudoomiyaha jaaliyaddu ku baaqayaa in xaflad banaanbaxa la qaban doono xilliyada soo socda haddii alla idmo in si mugli looga soo qayb galo iyadoo la diidan yahay ama se laga soo horjeedo damaca guracan Abiy Ahmed iyo dowladda Ethiopia siyaasi darteed mar walba jaaliyaddu waxay ku baaqaysaa ama soo dhaweynaysaa sidii loo hirgelin lahaa hogaaminta dalka dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo baahida dadka iyo dalka Soomaaliyeed oo ah dalkooda in ay difaacdaan oo ay si wada jir ah u difaacdaan si ay jiilasha dambe ee mustaqbalka soo socda ay u helaan wax ay dhaxlaan kulankaas galabta la qabtay oo aan halkaan ku duubayno waxaan ugu baaqaynaa dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK in ay ka soo qayb galaan banaanbaxa ballaaran oo maalmaha soo socda lagu qaban doono beerweynta banaanbaxyada lagu qaban jiray haddii alla halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambaleel ka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxaa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiis